السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa janaalka EU Coaster waa casharkii saddexaad FVB. maanta waxaan ku soo bandhigi doonaa programkii ugu horeeyay FVB. marka hore formku waa uu kacsan yahay. waxaan tegaynaa toolbox. markii aan tagno buttonkan ayaan soo qaadanaynaa. click aniga hayo ayaan soo jiidaa. meesha markii plus noqoto ayaan ku sii duldeynaa formka dushiisa. okay, buttonki ayaan xoogaa weynaysanaynaa. markii aan weynaysano centerka ayaan geysanaynaa. buttonka waxaan rabnaa inaan magaca ka bedelo. okay, textiga meeshan ayaan tagaa oo properties ayaa waxa dhan laga bedelaa. click ayaan ku qoraa meeshan. markii aan ku qoro waxaad ka bedeli kartaa size-ka font ay tahay. font ayaa tagaa meeshan saddex dhibcood ayaan taabanaa. bold ayaan ka dhigaa. meeshan kale ayaan tagaa dane 48 ayaan ka dhigaa size-ka. meeshan fonta nooca ay tahay farta badaleysa toham ayaan ka dhigtay. okay, hadda waxaan rabaa inaan ka shaqeysiiyo buttonkan. hadda aan kicino bal formka markaa kicino waad ujeedaa formka haddii aan click ku siino ma shaqeynayo. waxaan rabaa inaan ka shaqeysiino buttonkan. okay, haddii aan rabnaa buttonka inaan ka shaqeysiino laba meel ayaan ugu shaqeysiin karnaa. right click inaan dhahno view code inaan dhahno code ayaan qori doonaa maanta ama double click inaan siiso waa another way. okay, zoomka ayaan soo dhaweysanaynaa. okay, 200 naga dhig. okay, saan si fiican u aragno. okay, meeshan buttonka button 1 click ujeedaa. buttonkii hadda aan sameysanay ayaan hadda ka shaqeysiin doonaa. macnaha waxaa jirto laba magaca hadda aan ka bedelnay buttonka aan click u bixinay waa kaas tagasi caadi waa magaca dushiisa ka muuqanaya. laakiin waxaa jiro magac kale oo variable name la dhahayo oo la shaqeyn doona code-ka. hadda aan fiirino bal meeshan ka fiirino bal waa kan name ayaa ku qoran. button 1 kan variable waa wuxuu la shaqeyn doonaa code-ka ayuu la shaqeyn doonaa. hadda aan ka shaqeysiino buttonka message box. waxaan rabnaa marka hore inuu message box oo soo boodo horta. markii uu soo boodo dot show waxaad noo soo bandhigaysaa wixii aan ku gelino meeshan bracket ayaan furaa kabacdi double quotation. waa programkii igu horeeyay double quotation soo xir bracket kana soo xir. okay, hadda waxaan qornay halkan bis message box dot show. horta marka hore message box inuu soo boodo dot show inuu noo soo bandhigo waxaan meeshan gashanay. okay, hadda aan kicino bal formkii click aan ku taabto. markii aan taabto wax kana message box ayaa soo booday. message box kan soo booday waxaan ku qortay bracket ka dhexdiisa ayaa soo baxay kana oo programkii igu horeeyay FVB. okay, another way ku soo bandhigi karnaa oo message box aan ahayn wax soo bandhigi karnaa. okay, formka ayaan dul tagaynaa. meeshan kale waxaan sameysanaynaa label ayaan soo qaadaa. label ayaan soo qaatay. labelkan magaca tagastiga ka bedelayo waa iska tira basiga dhan. markii aan iska tiro waxaan rabaa inaan adeegsado rabaa message box kan ma rabo. waxaan ku qoraa meeshan message box. meeshan waxaa iga maqan indi saba iga maqan amalaya. yes, so waad fahmay. okay, label 1 ayaan dhahay dot text equal double quotation hello world soo bandhig. waxaad ku qori kartaa hello world double quotation. hadda aan fiirino bal programkii. okay, click ayaan ku dhahaynaa. marka waxaan soo baxayo hello world ujeeda hello world. hadda waxaan ku soo bandhignay message box laakiin hadda waxaan ku soo bandhignay label. hadda waad iska kartaa. so casharka intaan ayuu noogu ogyahay. ka faa'iidayso wacan. fadlan subscribe dheh YouTube channelkayga adigoo mahadsan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.